امتحانات كشاري فصل أفراد مسجدات أي واحد وسير رسمي أو قبل أو مجال دبراء حرب قبل كتقدر سير هذا أرضي أو فريستين امتحانات كشاري أي هيد أفركني اللي حرضي قاب كابس من سعود كاه ما أنت امتحان قبل أو ذي أي واحد صحافة دور بحين مسؤولين وسائر دوا برشة يتعلم ده سريع قبل كتقدر يجوا شيء إن أي تدال بيرات قليل تدي سنة كان لو جهر تجي لها قشقي أي أرضي هي اللي ترين وجهرنا سوبر فايسر ردي سيد امتحانات كا أي واحد يكور بحين قاب قبل أو ذي امتحان وحنا كم هذا اللي دي waxaa ka bilaabmaya dugsiga sare Sheekh Bashiir waxa imtixaankiisa dugsiyeedka 16 17 dugsiyada sare run ahaantiina waxa uu aad iyo aad si qurux badan ayuu uga bilowday waxaana ardaydu ay ka kala yimaadeen ilaa iyo 8 iskuul goobtan haddii aan idinka siiyo warbixin kooban waxa ku galaya 380 arday oo ka kala socda 8 iskuul oo dugsiyada Burco ka tirsan ama gobolka Togdheer ka tirsan ayaa halkan ku galaya waxaan u mahad celinaynaa aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha dugsiga Sheekh Bashiir wasaaradda waxbarashada ciidamada amniga ee gobolka iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Xasan iyo bahda saxaafadda oo iyadoo si fiican looga qayb qaadatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac iyo xoghayaha gobolka Togdheer ayaa weerarada dardaaran ah u jeediyay ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkaas iyagoona uga digay wax kasta oo khasaare ku keeni kara sameeyo socodka imtixaanaadkaas ay ku jiraan guud ahaan gobolka Togdheer maanta waxa imtixaanka dugsi heerka dhexe ee fasalka 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiyada sare guud ahaan maanta waxa uu fariisanaya gobolka Togdheer 4006 arday oo kala ah dugsiga hoose dhexe ee eedka waxa fariisanaya 2984 arday halka dugsiga sare form 4 kana ay fariisanayaan 1722 arday waxaanu se kula dardaarmaynaa kuna adkaynaynaa qishkii wax la yiraahdo waa la dagaalamaya ardaygu inuu kalsooni qaato oo uu isagoo isku kalsoon imtixaanka u fariisto number 1 waxa la yiraahdo mobilka ardaygii lagu arko isaga mobilkuba dibadda u baxayaan maadadaas waa cancel dadweynow iyo ardayow waxaanu halkan idinka cadaynaynaa ardaygii mobil lagu qabto in uu dibadda yahay oo maadadaas ay tahay laga baabi'inayo oo aan waxba looga soo qaaday waxaan leenahay maanta ardayow waxaa habboon inaad ku meel gaadho wixii lagu baray ee lagu dhigay macalinku ku baray inaad ku meel gaadho ayaa habboon waxaan leenahay wadii ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii ku guuleystay noqdo imtixaanka waxaa la idinka rabaa akhlaaq wanaagsan si kastaba ha ahaatee imtixaanaadkan ayaa ka jawi duwanaa imtixaanaadyadii hore ee shaadiga ahaa washeede Cumar Ismaan Shabashakay warbaahinta caalamiga ee Togdheer magaalada Burco.